Sunshine Media. Subscribe for more. Dunidan aanu guudkeeda saaranahay waxaa ku nool qowmiyado kala duwan kuwaasoo aanan isku diin, isku af iyo isku dhaqan toona ahayn, balse waxay ka wada siman yihiin jacaylka, hinaasaha ama masayrka iyo waxyaabo kale. Qarniyadii hore, jacaylku waxa uu ahaa mid dadku aad u qadariyaan, aadna u qiimeeyaan. Waxaynu ognahay in dad badan ay u dhinteen jacaylka, halka kuwo kalena dhibaatooyin badan kala kulmeen. Dadka baalka lama ilaabaanka ah ka galay jacaylka waxaa ka mid ah jacaylkii Cilmi Boodhari iyo Hodan, jacaylkii Qays iyo Layla, jacaylkii Cantar iyo Ceebla. Qarnigan aanu ku jirno, dad badan ayaa aaminsan in jacaylku yahay mid jira, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inuu yahay wax aan jirin. Haddaba waxaanu kuu tilmaami doonaa 8 waddo oo aad u mari karto soo jiidashada qofka aad jeceshahay. Haddaba raac tilmaamaha soo socda. 1. Ugu horreyn, ha noqon qof ku degdega u bandhigidda ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada jacaylka ah. 2. Waa inaad ahaataa qof furfuran, dabeecad wanaagsanna leh. 3. Haddii aad tahay dumar, waa inaad ahaataa qof xishood badan. 4. Haddii aad tahay gabar ama wiil, ku dadaal sidii aad u ogaan lahayd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisu tahay, adigoon weydiin, balse raadi waddooyin kale oo aad ku ogaan kartid waxyaabahaasi uu xiiseeyo jacaylkaaga. 5. Ogow, jacaylku indho ma laha. Qofka uu qalbigaagu raacay hadduu yahay qof aysan balwadiisu wanaagsanayn, ku dadaal sidii aad u wanaajin lahayd adigoo kula hadlaya hadallo macaan. 6. Qofka aad jeceshahay haddii uu yahay qof kaa fog oo aad 2 waddan kala joogtaan, ku dadaal sidii aad u xidhiidhin lahayd mar walba adigoo kala hadlaya telefoonka ama adigoo warqad ugu xardhaya erayo indhaha u roon, uguna diraya aaladaha casriga ah ee internetka. 7. Qofka aad gaclootay haddii aad kala fog tihiin ama aad meel wada joogtaan, noqo qofka warqaba oo la qaybsada farxad iyo murugo wixii soo wajaha. 8. Noqo qof loo xiiso marka uu joogo iyo marka uu maqan yahay. Waxaa inoo ballan ah muuqaalka xiga iyo anagoo nabad qabna insha Allah.